guddiga natiijo mahadcelinayna xaqiiqdii waa markii ugu horeysay aan la fadhiisano guddi baarlamaanka soomaaliyeed oo waxa laga quseeyo waa dhalinyarada tani burburkii dawladii dhexe Soomaaliya waxa burburay dhamaan haykalkii dawliga ahaa waxa baaba'ay dhalinyaradii mas'uuliyaadkoodii iyo horumarkii ay ka sameyn lahaayeen yaa baaba'ay waxa meesha ka baxay wixii muhiim u ahaan lahaa dhalinyarada in lagu hagaa meesha ka baxay waxa la isku dayay in badan oo dhalinyarada iyo civil society-ga isku dayeen in wax un la soo noolay si aysan dhalinyaradii uga bixin wadankii uga wada haajirin oo muhaajiriin ayagoo dhan marka dhibaatooyinka intaas la eg markii la sameeyay study-gii la sameeyay qolada UN-ka ay sameeyeen waxay ku qiyaaseen dhalinyaradu da'doodu ay ka yartahay 30 inay yihiin 73% marka budgetka dawladda Soomaaliya ay u dejisay dhalinyarada oo ah 0.26 dhalinyaro bulsho dhan 73 waa xaalad adag oo marxaladka lagu jiro iyo dhalinyarada siday u kala daadsan tahay iyo dhibaatooyinka jiro ay aan dareemayno marka dhibaatooyinka ku gadaaman oo aan maanta naga hadal siiyay noo saamaxday idinkuna aan kaga mahadcelinayna hortiina soo fariisano idinkala hadalna waxa kamid ah shaqo la'aantii dhalinyarada oo aad u badatay ma haystaan shaqooyin tababar la'aan tala la'aan dhaqaale darro oo ognahay wadanka meesha dhaqaalihiisu uu marayo hagid la'aan markay timaado marka shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyarada ku timid waxa ku lamaanaanayo qatar aad u weyn qatara ku lamaanayso oo aad u baaxad weyn waxa badanaya fal dambiyada ay sameyn karaan dhalinyaradu marka ay shaqo la'aan noqdaan waxa laga faa'iideysanayaa maskaxdoodii waxa laga faa'iideysanayaa muruqoodii waxa laga faa'iideysanayaa yani dad ahaan damiir ahaan inta waa laga faa'iideysanayaa because qofku markuu dhalinyaro yahay ama uu wax bartay ama uu wax baranin hadaysan jirin meel uu ku jihaysan yahay waxa badanayso fal dambiyada uu sameyn karo qofkaas oo aan ku qiyaasnay 6.7 يعني 6 أما تضبط لح أما تضبط عن كوقي ياسني إن كبدن إن أي بدن كران في الدنبيدي ده إسمين كران قف كشغلة آن تامر أنا يرضى منك أي شغلة آن نقدان لبعتوين كعلم نفسي جبدنا أو كبت أنا يرضى أنتوا ذا بدن أو أنتوا ذا بدن أي كسر يستنيهين با إن يود المهاجرين نقدان أما أي لبعتوين كدن أي يعني مرتب ونقدان oo dhalinyarada arkaysan dhibaatooyin ku dhacayo oo ku gudaha ku dhacayo ku dibadaha u tahriibayo ee nolol ka raadinaya wadamada kale ee ku dhacayaan waxa badtay oo dhaqaatiirta la kaashanay cudurrada ku dhaco wadna xanuunka dhalinyarada ku dhaco yani qofkii dhalinyaro waaye ma haysto meel uu ku madadaalo ma haysto shaqo uu ka shaqeeyo ma haysto waxbarasho ku filan ama familkiisa ay ka bixin karaan hadduu laakiin maanta awoodo ama uu heli karo dawlad damaanad qaada waxbarashadiisa waxa yaraan lahaa qataraha ku dhacayo ama isla hadalka nafsiyan ee wadnahiisa iyo dhibaatooyinka uu gaarsiinayo waxa badanaya marka qataraha kaleento oo ah oo aan ku qiyaasnay oo si kordhay amaan darrada kaleente waxaan ku qiyaasnay 3.9 in ka badan in dhalinyarada ay sameyn karaan fal dambiyeedyo la xiriira ismiidaaminta dilalka amni darrada ay qayb ka noqon karaan marka intaasoo dhibaato dhalinyarada markoo ay sameyn karaan oo ay yani haddana aysan jirin budget dhameystiran oo dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin oo la dhihi karo budgetka intaas la eg dhalinyaradu yay leeyihiin ana dhihi karin waa ognahay maanta wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyaradu budgetkeeda waa 0.26 oo ku salaysan mishaaraadkeeda iyo running costigeeda ku salaysan ma jirto wax development oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ugu tala gashay oo ama tababaro ah ama xirfado kale inta lagu baraayo ama loogu sameynayo wacyigelin loogu sameynayo si dhibaatooyinkaas dhan looga hor istaago marka intaas ayadoo ay taalo oo aysan haysanin wax yani dhimrin celin ah oo dhalinyarada loo dhimrin celinayo oo ama loo naxariisanayo ama loo leeyahay dhalinyarada wadankan yani bulsho kasta oo ummad ama ay leedahay waxa asad ay leedahay waa dhalinyaradeeda haddii aan ognahay haddii aan rabno inaan ogaanana
waxaan ogaan karnaa bulsho inay baaba'day dhalinyaradeedan ka ogaan karnaa 73% bulshada ka ahow haddana dhibaatooyinkaasoo dhan adiga marti u noqo waa nasiib darooyinka jiray ka mid tahay marka talooyinka yarka aan rabno inaan ku darsano oon soo jeedino inkastoo aan rabno talooyin badan aan idiin hayna email-a idinkula wadaagi doonaa laakiin talooyinka aan rabno inaan idinku darsano waxaa waaye in dhalinyaradu ay hesho horta oo ama dugsiyada sare dhammaysato inay helaan talooyin buuxda waxaan ka wadnaa inay helaan goob ay u imaan karaan oo dawli ah ee loogu tala celinayo ama aqliyadooda lagu korinayo ama lagula hadlaayo oo xitaa lagu rajo gelinayo inay helaan ka helaan dawladda Soomaaliya ee ka helaan in dhalinyarada Soomaaliyeed loo abuuro shaqooyin qatarahaas dhan waxay u sameynayaan oo badaha uga daadanayaan oo ay riski naftooda u gelinayaan inay noolaadaan inay dhintaan ay ka jecel yihiin waa shaqo la'aanta baahsan jirto haddaan ogahay gurigaygii inaan maanta kula noqon karo shaqo aan soo shaqaystay reerkayga aan ka biilan karo qatar nafteyda ma gelinay mana tahriibi lahayn marka dhibaatooyinka tahriibka keenayo iyo dilalka faraha badan iyo riskiga aan hadda soo sheegnay keenayo waa shaqo la'aanta jirta in shaqooyin loo abuuro in loo sameeyo xirfado toos ah oo dawladda Soomaaliya ay sameeyay center skills lagu baro dhalinyarada oo looga celiyo qataraha jira looga celiyo marka waxaan rabaa inaan israacsado su'aalahayga asxaabtayda intaan ku wareejinay dhaqaalaha hadda ugu badan budgetka ugu badan ee dawladda la siiyo waxa ku jiro security-ga kale inta ku jiro security waxba naga quseynaya oo ah qaybta dhalinyarada iyo askarta naftirkeeda dhalinyaro waaye budgetkeeda ugu badan waxa lagu bixiyay rasaas qoryo hub waxaas lagu waxeeyay ma jirto caafimaad rasmi ah ama goob weyn ee caafimaad ay leeyihiin caruurtaas haday soo ama dhalinyaradaas haday soo dhaawacmaan lagu daweyn karo oo dawo rasmi ay ka heli karaan ma jirto marka xagee dawlad security-geedii aan ognahay meesha ay taagan tahay haddii ciidamadeeda ay soo dhaawacmaan aysan jirin isbitaal rasmi ah ay lagu daaweeyo waxaan ogaan ka warqabaa isbitaalka xoogga dalka kaleente dhalinyaro soo noqotay yaa isku dayay inay wuxuun ka bedelaan way waxba la sameeyay hase ahaatee ma jirto budget rasmi ah oo loogu talagalay oo dawo iyo nidaam kaleente iyo loogu sameynayo ma jiro hay'adaha raas boorgarayaan ognahay aan ka warqabaa marka sidee suurtagal ku noqonaysaa dawlad leeyahay waxay ku jirtaa ahmiyad ay ku jirtaa dagaal ay ku jirtaa dhalinyaradeedu way dagaalamayaan oo askarta ahayd way dagaalamayaan haddana ma jirto goob caafimaad oo rasmi ah oo lagu daweeyo oo aan ognahay dhalinyaro badan lagu ka jajabano naafa ah oo baahiyaha gooniga qabo ay joogaan ama ay hadda ku socdaan taas rabnaa inaan su'aalahayga ku darsado budgetka dawladda 2016 2017 waxaa ka badan 2017 ku tiirsanaanshaha ay ku tiirsan yihiin arrimaha yani dibadda 2016 yaa waxay ka badan tahay 2017 ka badan in lagu tiirsanaado meelaha yani dhaqaalaha wadamada kale laga keenaa lagu tiirsanaado marka iyadoo hadda aan leenahay dawladii waa korortay dhaqaalihii waa corruption-ka waa la ilaalinaya sidee suurtagal ku noqotay su'aashayda kaleento aan rabay inaan idin weydiiyo waxa waa national development plan-ka waxa ku qoran aan ka akhrinay 3 sano soo socota in lagu shaqaalaysiinayo 50,000 oo dhalinyaro oo u dhiganta sanadkii 17,000 oo dhalinyaro in lagu shaqaalaysiinayo budgetka markaa fiirisid national development plan-ka ma qaldan mise budgetkan dadka diyaariya qaldan waxaan rabnaa inaan ogaano su'aasha taas waaye dhalinyaradii la yiri 50,000 oo dhalinyaro ah 3 sano soo socota la shaqaalaysiina haddana aysan jirinba wax xitaa awareness ah ee u xariiqan wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada aysan jirin marka sidee suurtagal ku noqonaysaa arrintaas ani su'aalaha asxaabtayda kale intaan u daayinaya waa mahadsantihiin waan idin mahad celinaynaa runtii thank you guud ahaan waan u mahad celinayaa munaasabadan dadka ka soo qayb galay oo qaybaha kala gedisan bulshada ah qaybaha kala gedisan ee bulshada dadka ah oo munaasabadan ka soo qayb galay dhammaantood aadaan ugu mahad celinaynaa runtii talooyinka aad bixinaysaani guddi ahaan aaday muhiim noogu tahay sida ay sheegeen xildhibaanadu haddii aynan fursaddan hadda taagan ka qayb geli karin ama ay adkaato inay ka qayb gasho
waxay keenaysaa in xilliga dambe soo socda haddii ilaahay yidhaahdo oo aan dheerayn oo laga yaabo dee sidii hadda xildhibaanku uu sheegayay in October la gudagalo miisaaniyadda cusbada 2018 inay saameyn ku yeelato hadalkeena inay wax ka bedesho fikirka iyo dadka mas'uuliyiinta diyaarinaya miisaaniyadda laftirkooda guddigu inay hubiyaan shaqadaani inay qabsoonto oo ay maaragtay baahi ay dareensan yihiin ay tahay ficlan naga dee mujtamacan ka nimid waan dareensannahay baahida iyo duruufta aad sheegaysaan oo dhan aadaan u ognahay halka arrinoo raba inaan wasaaraddiina lama joogto waxay ahayd inay su-aalaha qaar iyadu runtii dee maadaama ay ka hayso macluumaad dheeriya inay ka jawaabi karto annagu dadkaan matalnaa dadkaan ka nimid sababta aan dadka ugu yeernayna waxa weeyaan ama adinka idinkugu yeernayna waxa weeyaan inaan ra'yiga in la sheergarino in la wadaagno si wasaaradda iyada laftirkeedu ay aragtidaas ay wax ugu qabsato wax ugu goosato ama ay wax ugu dhisto waxaan isleeyahay horta innaga miisaaniyadda hadda la qoray iyada dhan waad aragteen inta ay la eg tahay waxa ay ku salaysan tahay gebigeed waa arrinka hoostigaas hadda ay sheegayaan dhallinyarada ay ka hadlayaan waaye wasaaraddii shaqaalihii ka shaqaynayay iyo inta yareeda howlaha maalinlaha lagu waday waaye waddan aan tacliintiisa iyo caafimaadkiisa iyo dhallinyaradiisa wax lagu bixinaynin oo aynan miisaaniyaddiisa ama budgetkiisa si xoog badan aynan uga muuqanin priority-go dhan annaga maanta dee isaga xataa wax badan ma aha laakiin haddana ciidamada iyo dhinaca amnigiiba ayaa xoog badan waxaa laga yaabaa duruufta inay keentay waddanka wuxuu u baahan yahay in gadaal laga soo qiimeeyo marxaladaha aan ka nimid gadaal in loo soo qiimeeyo yacni haddaad ama adduunka u barbar dhigto waddankeena waxa ka jira iyo miisaaniyaddeena iyo awooddeena dowladnimo haddaad adduunka u barbar dhigto waad iska quusanaysaa laakiin haddaad gadaal usoo qiimeyso duruuftii adkeedan soo marnay xilliyadu say isu soo bedbedelayeen iyo maanta heerka aan soo gaarnay amal iyo rajaa jirta in 2018 wax kordhayaan in 2019 wax fiican sii samaysmayaan in hore loo socdo insha Allah taasaan rajaynaynaa waana taas midda keentay waxaana soo martaan u maleynaya xilli aan dheerayn oo aan miisaaniyadda laga fakaraynin wixii la soo helo maalintaas la isticmaalayay miisaaniyad waddanku uu leeyahay aynan jirin laakiin dee hadda waxaan iyo dhaqdhaqaaqan iyo isbeddelkan cusub ay yimid wuxuu keenayaa in aan hore u socon karno oo taladan iyo aragtidiinaan inta wax lagu dhiso hore loo dhaqaaqi karo hore wax loo socodsiin karo marka aaday runtii dee fikraddan muhiim u tahay middan ay dhallinyaradu weydiinayaanoo dee qorshaha qaranka ee ah national development planka oo sheegaya in 50,000 oo shaqaale ah la qaato waxa weeyaan waa sax waa qorshihii waaye laakiin haddana dhinaca kaleeto waxaan filayaa waxaa jira adduunka maanta inagii kaligeena isma taagi karno hay-ado kale international saameyn la leh budgetka laftirkiisa miisaaniyadda laftirkeeda saameyn la lahaa jira IMF ha ahaato World Bank ha ahaato dadka ay calaaqada la leedahay hawshan laftirkooda saameynta ku leh ayaa waxay keenaysaa mararka qaar inaad shuruudahooda iyo mataalibtooda iyo qaabka ay wax u rabaan oo ah inay iska fargarayn karto dakhliga adiga ku soo gala iyo qarashka aad bixinaysaa inay isdabooli karto daymana waddankan lagu leeyahay intaasoo danaa dayman ay ku taagneed wuxuu u baahan yahay daymankiisa cafis in loo raadiyo wuxuu u baahan yahay in laga shaqeeyo marka mujtamac kaleeto annaga midkan dhexdeena aan ahayna laftirkiisa wuxuu u baahan yahay inaad qanciso aragtidiisa iyo fikraddiisa aad wax ka dhiiban karto marka waxaasoo dhan waxaa jira dee xiriir la wada leh miisaaniyadda iyo qorshaheeda xiriir la wada leh laakiin haddana tan dhabtahay waxaa waaye inaanay tacliinta iyo maxaa la yidhaahdaa iyo caafimaadka iyo dhallinyarada iyo inta lamidka ahee hadda uun programka nagala wada qaybgelaysa mujtamaca qaybihiisa laga soo wada xulay baahidooda in la ogaado waxna lagu beesgareeyaa inay waajibtaa dadku haddayna shaqo helin oo ayna waddanka shaqo laga abuurin maxaa la yidhahdaa waddanku horumar ma gaari karo dhinaca kaleetana hay-adaha tacliinta ka shaqaynaya ee hadda odayaashooda ay noo warbixinayeen oo kaleeto waa inay iyaguna canshuurtii bixiyaan waa inay laftirkoodu dakhligii soo aruuristiisii iyo akoonkii dowladda inuu dakhligii soo galo waa inay qayb ka qaataan si ayagiina wax loogu celin karo waxaa laga yaabaa intaasoo macallin inay u shaqayso waxaa laga yaabaa inaan hadda canshuurtii sidii la rabay inaan loo bixinin marka in canshuurtii la bixiyo dakhligii la kobciyo si dhinaca kaleetana ay saameyn u yeelato inaad hay-adihii dowladdii ay wax ku bixin karaan marka mulaaxadadaasaan raba runtii aan si guud u sheego soo jeedinta dhallinyarada oo ku saabsan dee duruufaha jira iyo xaaladaha jira iyo in si fiican loo fiiriyo maxaa la yidhaahdaa iskuulaadkii dadka farsamada gacanta oo kaleeto ay sheegeen oo wax lagu bari jiray oo ay saamaxaysa tacliinteena dee bardu daraf ayada laftirkooda ka soo galaysa
aad bay muhiim u tahay runtii in la dhiirigeliyo innagana dee waan isku daynay guddi ahaan iyo wasaarad ahaanba markaan isla fadhiisanay waxyaabaha aan aadka uga dhiskaas garaynay ayay ku jirtaay oo aadka looga hadlayay in si macno leh loola falgalo howlahaasi laakiin duruufta waxaa laga yaabaa inay maanta sidaan ay xadidayso fikradiinaan iyo aragtidiinaanna si xoog badan aan u qaadaynaa ama baarlamaanka ahaato inaan gaarsiino ama ha ahaato wasaaradda laftirkeeda inaan kala hadalno oon la wadaagno hadday maanta suurtogeli weysa waxaan isku dayaynaa miisaaniyadda inay wax iska bedesho 2018 ka midka loo diyaarinayo waddanka oo macno intaan ka badan ay soo kordhiso aad u mahadsantihiin